السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maalin wanaagsan, subax wanaagsan, isu soo noqod wanaagsan. One week cashir baan soo gelin oo review-giini maasha Allah. Insha Allah taala today aan dib u bilaabi doonaa arrimo cilad xagga farsama ii jirtay. Insha Allah taala laakiin inaan kasoo kabsano baan rajeynaynaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin daawashada videogan. Waa anigoo idin leh kusoo dhawaada mar kale iyo mar kale. After that insha Allah taala aan u galno suuqeeni maanta oo Tuesday ay tahay morning insha Allah taala. Suuqana xoogaa dhaqdhaqaaqiisa maanta aan rajeynaya inuu si fiican u bilaabmado. Shalay waa u bilaabmaday laakiin si fiican maanta baan rajeynaynaa inuu bilaabo insha Allah. Aan ku horeeyo USD Canadian-ka hadduu Ilaahay idmo insha Allah. Today waxaa jiri doono ilaa 3 news baa jiri doono ay ka mid tahay Australian-ka oo interest rate decision-ka uu soo bixi doono oo bishan September ah kaasoo la filanayo 1.50%. Waxaa ka mid ah Switch-ka asigana uu soo bixi doono consumer production-ka price index-ka oo Switzerland ah isagana laba madax la'aan. Waa la rajeynaya inuu wax dhaqaajiyo isagana. Waxaa ka mid ah pound construction-ka oo isagana uu soo bixi doono pound-ka aad iyo aad u muhiim yahay maanta. Waxaa ka mid ah isla pound-ka oo bangiga ay soo saari doonaan inflation report ay soo saari doonaan. Waxaa ka mid ah ISM manufacturing-ka oo ay Mareykanka oo Institute of Supply Management-ga ah manufacturer purchasing managers-ka oo la soo saari doono bishan hadduu Ilaahay idmo. Isagana waa la rajeyn doonaa. Investing-ka iyo meelo badan baa ka heleysaan ku laabta. Insha Allah aan ku hormarno signal-keena ugu horeeyo ama chart-keena ugu horeeyo USD Canadian. USD Canadian haddaad aragtaan waxaan waa wixii hore walbana xitaa casharada ugu horeeyo area-dan aan ku sharaxnay oo ay ahayd in qiimaha in header-ka left shoulder iyo right shoulder-ka uu ixtiraami doono area-dan uu kasoo dhici doono. Masha Allah waxaad aragtaa in qiimihii mar kale uu ixtiraamay header-ka iyo left shoulder iyo right shoulder kadib uu soo dhacay qiimihii wax fiican laga qabsadana uu kusoo laabtay. Insha Allah taala haddii saacada yarka aan keeno hadduu Ilaahay idmo waa idinka bixiyo qiimihii waa kana uu soo dhacay Masha Allah. Waa in this area haddana si fiican buu usoo kacayo ay ka mid ahayd Canadian-ka last week uu soo baxay qiimihii si fiican usoo kacay iyo dollarkii xoogaa soo yara laabanayay. Waxyaalo badan insha Allah. Qiimaha hadda USD Canadian-ka waa kana trend-kii waa uu haystaa oo down trend-kii waxaa ka mid ah 1 2 3 and 4 in this time oo hadda qiimihii uu bilaabay inuu isku dayo inuu ka dhex baxo hadduu Ilaahay idmo insha Allah taala. Saacada yarka 1 hour-ka kale haddaad ku fiiriso look candle-ka si fiican buu u hayaa balse waxaad u maleysaa inuu qiimihii isku dayayo inuu ka dhex baxo balse wait ilaa laga furo Mareykanka hadduu Ilaahay idmo insha Allah amba European-ka maadaama Asian-ka zaaid uma dhaqaaqayo. Sidaas darteed marka maanta waa uu jiraa news oo dollarka waa uu jiraa kolley zaaid uma buro laakiin inuu wax dhaqaajiyo waan rajeynaynaa. Sidaas darteed marka qiimaha waa inaad la socoto USD Canadian-ka in sell area uu joogo hadda balse u baahan yahay confirmation sax ah uuna siiyo ilaa 2 candle oo lagu kalsoonaan karo. After that riskiga qofka uu qaadan karo uu yaryahay. Sidaas darteed marka tomorrow waxaa jiro Canadian interest
interest Bank of Canadian ay soo saari doonaan oo qiimihii la filanayo bishii hore intii lamid in la filanayo sidaas darteed marka intii la filanayo intii oo kale hadday soo baxdo qiimaha Canadianka rate-ka hoos buu gelayaa that time-kaas sidaas darteed marka qiimaha USD Canadian Euro Canadian iyo Pound Canadian iyo lacago badan kor bay aadi doonaan marka waxaad ku xisaabtantaa sell area-dan oo haddii uu confirmation sax la siiyo in aysan meel dheer aysan ahayn ilaa dhowr iyo toban pips ilaa 50 area-daas insha Allah waa ka rajeynaynaa soo marka insha Allah hadda wuxuu taagan yahay sell area oo ay Soomaaliya hadda u tahay 10 habeenimo soo marka insha Allah isha lagu hayo USD Canadianka aan u galo isaga Euro USD hadda waa uu soo dhacayaa in this area sell limitkiisa waa in this area rajeynaa inuu ahay idin bana in this area 50 balse muusan soo gaarin wuxuu kasoo laabtay 33 alxamdulillah waa qiimaha waa kaa uu soo dhacay maasha Allah waxaan rajeynaa the moving average kii waa isyara dhaafi rabaa qiimaha waxaan rajeynaa ilaa up to here inuu imaado alxamdulillah insha Allah 1.1513 ilaa 2730 area-daas inuu qiimaha imaado rajeyn doonaa uu supportigaas xijiyo sidaas darteed marka maanta doolarka newska jiro iyo European-ka wixii lagu soo baan ka war sugaynaa maalmahan xitaa waxaa socoto olole badan European-ka ah Mareykanka iyo waxyaalo badan oo tashanayaan inay isku tastaan sidaas darteed wadamo badan Talyaaniga iyo Faransiiska iyo wadamo badan oo u baahan inay growing badan ay sameeyaan sidaas darteed marka lacagaha European-ka Euro-da wax badan bay saameyn doontaa insha Allah tacaala in this 1.1514 in that area and sugi doonaa insha Allah tacaala qiimaha inuu kasoo hoos maro haddii in this moving average-kan uu kasoo hormaro sidaan oo kale ugu soo hoos maro 66 sidaas oo kale ugu soo hoos maro ilaa 60 qiimaha after that oo moving average-kii ku noqdo oo cuskado resistance hadda meeshan waxaa uga jeedaa support area buu ka dhigtay balse kii kale buu resistance ka soo marka waxaa u dhaxayso 89 90 ilaa 30 40 pips sidaas darteed marka qiimaha hadduu sidaas sameeyo oo sell signal area oo markuu saacadaha yarka baa ku arki doontaa 1 hour-ka oo kale waad u jeedaa fiiri in this area of resistance soo marka insha Allah waxaan rajeyn doonaa qiimaha inaan iibino Euro USD in this area ilaa in this area 30 ilaa 15 area insha Allah oo support area inaan iibino baan rajeynaa Euro USD oo laga qabto faa'iido ah 70 ilaa 80 pips insha Allah tacaala Mareykanka intaan la furin koorna inay tagtana suurtagal ama xilligaas inay tagto suurtagal insha Allah soo taxadir badan samey Pound USD isagana aan tagno insha Allah Pound USD qiimihii in this area haddaad aragtaan baa laga soo celiyay resistance area maasha Allah qiimihii supportigii oo uu soo jebiyey oo uu soo socdaa trainkii oo ka dhex baxay markii hore aad u jeedaan si xoog leh oo baxay waa uu kasoo dhex baxay mar kale isagana waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala in qiimihii lagu yar celiyo maanta Pound baa jiro isagana taxadir kale u baahan yahay qiimaha waxaa suurtagal ah in inta aan la furin Pound ama Euro-da European-ka markii la furo in qiimihi kor uu ku laabto in this moving average-ka sida la filanayana waxaa jirto negative inuu soo bixi doono baa la filanaya bishii hore in ka yar baa la filanayaa sidaas darteed marka inuu kor kula yar laabto oo trendkii yaro cuskado after that qiimihii uu soo dhaco ilaa 1.2739 area inuu imaado ama this area insha Allah tacaala oo si fiican u xijiyo 1.28 insha Allah tacaala ilaa 60 ilaa 90 pips soo marka
maanta laba news baa jiro sidaas darteed marka waa mar inflation reportiga oo bangiga isugu jeeni doona economiga iyo news kale oo ka horeeyo I think inay tahay markii u tahay Soomaaliya 5 saac iyo bar oo duhurkii eridaas 5 saac iyo bar oo construction soo saari doono sidaas darteed marka intaa ku haya pound USD laftirkiisa qofkii sell ku jirana maasha Allah in this area qofkii kasoo galayna xaqiijiyo maxaa lahay check stop losskiisa profitka dhex keeno si haddii qiimihiisa waali usoo fakado si uga badbaado insha Allah tacaala waxaa kamid ah oo aan fiirin doonaa hadduu ilaahay idmo pound Australian waad aragtaan qiimihii inuu ka dhex baxay trendkii ilaa up to here xitaa hadaad aragtaan resistance area 1.7980 oo qiimihii ka dhex baxay qiimihii maadaama uu ka dhex baxay haddana waa usoo laabtay yesterday qiimihii waa usoo dhacay banka baa soo dhacay sidaas darteed marka qiimihii maadaama uu soo dhacay hadda wuxuu isku dayaa waxaa jirto after 3 saacadood ay ku aadantahay Asia xaggeeda dhankaas 10ka markay tahay Soomaaliyana ay u tahay 7:30 oo morningka ah in qiimo interest rate usoo bixi doono oo waali ah Australian haddii faa'iido kordhin lagu sameyn waayo qiimihii wuxuu sameyn doonaa inuu hal mar sidaas u boodo qiimihii ama uu kasii sare maro baa dhici doonta laakiin yaa la trade gareynin interest rateka insha Allah hala sugo opportunities hala sugo pound Australian baa jiro maanta waa midka ugu faa'iidada badan maanta poundka markii indhaha lagu haayo insha Allah tacaala tomorrow xitaa Australianka waa u jirtaa news baa u jiro oo GDP ah waan rajeynaynaa so marka insha Allah tacaala I think haddii qiimaha in this area hadduu ka dhigo maanta ka hor ama interest rateka uu sameeyo sidaan hadduu ilaahay idmo in this area uu ka dhigto headerkii uu sidaan u noqdo oo meeshaan ay noqoto left shoulder in this area aan rajeyn doono inay noqoto right shoulder inay noqoto then qiimihii pound negative soo baxo insha Allah tacaala up to here ilaa up to 1.7728 in qiimihii aan ka helo sidaas darteed marka hadda qiimaha meesha laga celiyo haddii aan idin tusiyo waa in this area oo qorigan dheer support resistance iyo support ka dhigtay sidaas darteed marka qiimaha dhowr waji buu yeelan karaa in newska negative uu soo baxo interest rateka oo sidii la filanayay uu soo baxo wax lagu kordhin haddii lagu kordhiyana qiimihii uu hoos usoo jebiyo hoos usoo baxo haddii uu qiimihii sidiisa u yahay ama sidii uu kusoo baxay 1.50% la filanayo uu kusoo baxo inuu qiimihii kor u boodo within that time oo kor u boodo wax yar socdo after that interest rateka sidaas uu ku dago Europeanka la furo after 2 hours ka bacdi suuqa si fiican u furmado oo isku dayo inuu qiimihii soo laabto waxaan rajeyn doonaa insha Allah tacaala in qiimaha uu geli doono xaalad ah down trade pound Australian insha Allah tacaala so laftirkiisa insha Allah waxaa kamid ah oo aan rabnaa inaan fiirino hadduu ilaahay idmo euro yen hadduu ilaahay idmo isagana insha Allah tacaala waxaan rajeyn doonaa in qiimihii maadaama area support la keenay qiimihii uu ka laabtay in this area inuu mar kale ku laabto up to here 1.2913 ilaa 33 inuu qiimihii ku laabto after that qiimihii uu sell area u soo galo waxaa kaloo oo ku arki karnaa qiimihii in laga soo celiyay in this area oo higher lower haddaad isku fiiriso saddexdoodaba
isku simaan higher lower lower so waxaa laga sareeyaa 15 in this area 85 ilaa adiga 30 pips waa laga sareeyaa so higher lower lower qiimihii inuu hoos mar kale u aado insha Allah taala so I think euro yen isagana sell area buu joogaa oo into here 1.2930 in qiimihii uu kasoo jeedo haddii kale uu cuskado uu dhisto support area qiimihii after that uu kor u kaco I think suurtagal so marka laftirkiisa indhaha lagu hayo euro Canadianka waxaa kaloo ka euro yenka euro Canadianka ay isagana 1 minute aan fiirino euro Canadianka haddii aan fiirino dailyga oo kale dailyga waa kana down trade buu soo galay qiimihii waa cuskaday mar kale cuskaday markii kale hadduu cuskaday 4 time markii afraad so insha Allah taala waa kana so qiimaha waxaan aragtaa inuu wax yar forward inuu hadda uu soo yara galayo in qiimihii uu soo yara dego 1 hour-ka waxaad ku aragtaa moving average inuu wax yar kasoo yara baxa laga qaadayo cuskanayo oo laga soo yara qaadayo so waxaan rajeynayaa haddii uu hadda qiimaha sidan uu sheegayo inuu haddii uu sameeyo sell area fiican oo na tuso kanalkiisa lagu kalsoonaan karo after that hadda waxaad u malaysaa inuu ku jiro joojiyo iyo muxuu ahay uu sameysanayo hammer waxaa kaloo ka mid ah inverted hammer iyo harami iyo inuu sameysanayo drag on fly inuu sameynayo so marka waxyaala badan baa ka mid ah sida darteed marka qiimihii inuu ka dhal fiican oo bearish inuu na tuso oo lagu kalsoonaan karo waan ka rajeynaynaa euro Canadian isagana sell area fiican buu joogaa waana tii aadin baa USD Canadian laftirkiisa isku daya inuu qiimihii ka dhex baxo haddii qiimaha uu ka dhex baxo oo sidan uga dhex baxo insha Allah taala oo qiimihii sidan uga dhex baxo sidaas uga dhex baxo insha Allah waxaan rajeyn doonaa inuu qiimihii uu ka imaado tomorrow newska soo bixi doono inuu dhaqaajiyo insha Allah waan rajeynaynaa I think laftirkiisa isha lagu hayo euro Canadianka waa laga qaban karaa dhowr ilaa 40-50 pips insha Allah aan u tago oilkii oo aan last week aan soo dhigay chatkiisa waa kana up to here already waa qofkii stop losskiisa oo kale meelaha sare ka soo galay stop losskiisa dhexda keenay already hadda waa laga tuuray qofkaasoo adiga 100 pips soo socday oilka Oman oo danka yiraahdo siduu sheegay waa kana aaway I think oo ka baxay waa kana Oman minister said oil price are unlikely to rise above 80 this year so oilka qiimihiisa wax biti ama uma lahan inuu ka kormaro 80 this sanadkan sidaas darteed qiimaha waxaa ku dhici kara inuu bearish u galo so hadda qiimaha waa ka aragtaa dhowr jeer buu support area ka dhigtay mar kale support hadda mar kale wuxuu isku dayaa higher lower inuu ka dhigo after that uu qiimihii uu soo socdo insha Allah taala I think isagana markii la furo Mareykanka iyo European-kaba in xoogaha oo European-ka inuu tuso sell area then Mareykanka uu si fiican u dhameystiro insha Allah taala waan rajeynaynaa isagana la socda qofkii aan ka faa'iideysan maalin hore in this area qofkaan ka faa'iideysan wuxuu ahay inuu mar kale oo galo hadduu leeyahay insha Allah taala oo qiimihii waa kana sida idinku wacdi maamul masha Allah oo ilaa inta muusiman balse area dhex buu ku yaraa kaday qiimihii kor baa loo yara qaaday inuu soo dhaco waan rajeynaa insha Allah balse wax sidaas u weyn maahan oo qiimihii waxaa la yara ixtiraamayaa resistance area in that time marka inuu qiimihii soo yara dhaco
after that oo mar kale isku dayo inuu qiimihii kor u aado laakiin oil mar walba waxaa lagu riixayaa ilaa muxuu ahaay 75 areadaas in la geeyo mar kale. Marka insha allahu tacaala waxaa kaloo kamid ah oo aan fiirin doonaa gold baa kamid ah goldiga hadaad aragtaan afartiisa waa sidan oo qiimihii uptrend buu ku yara jiray uptrendgii waa uu kasoo baxay trendkii waa uu soo jebiyey oo yara cuskaday waa up to here waxaad aragtaa inuu qiimihii 1.205 resistancega areada ahayd inuu qiimihii uusan dhaafi doonin oo muxuu ahay uu ku yara cadaadinaa hadduu markaan uu dhaafo insha allahu tacaala I think qiimaha inuu kor aadi doono laakiin weli waa cadaadinaya goldiga insha allahu tacaala. Waxaa kamid ah saacadihiisa halka saac oo kale haddii aad ku fiiriso goldiga halkiisa saac hadaad ku fiiriso waa kana qiimihii maalin hore maasha allah in that area qiimihii ilaa kor buu aaday 1.280 balse markii kale waa uu soo laabtay qiimihii waa 35 pips baan ku xiray oo groupkaba aan soo dhigay in qiimihii mar kale uu laabanayo oo hadda uu 2.05 ilaa that area isku dayayo. Tan kale moving averageka hadaad fiiriso resistance buu ka dhigtay oo wuxuu isku dayaa qiimihii inay isdhaafaan labadooda hoos usoo dhacaan soomaalida marka insha allahu tacaala indicatorska kale ku fiiri newsida waxa dhan insha allah ku fiiri hadba gal signalka markaas timekaaga la joogo oo aad opportunity fiican u aragto in qiimihii sell ama buy uu joogo area fiican inaadan markaa hubsato inaadan ka lablabeen oo aad qaadato riskigaas aad u yar faa'iidadana oo dailiga amba haddii aad tahay inaad 1% 2% aad ku kordhiso akoonkaaga sida maalin dhaweyd saxaafta wuxuu sheegay 1% hadduu $100 kordho 1% aad ku darto $1 hadaad ku darto muxuu ahay faa'iido baa qabtaa soomaadan khasaarin waxaa daran minus hadaad gasho minuska waxay adigii kaa goyaan laakiin plus hadaa noqoto weligaa plus hadaa noqoto pluskaaga waa u badan doonaa insha allahu tacaala golden isagana rajeynayna in sell area la galo hadda insha allah. Waxaa kamid ah euro australian isagana oo maanta u jiro newskiisa haddii aan idinku tusiyo dailiga aad si fiican ku arki doontaan insha allah qiimihii in this area waa uu cuskaday 1.670 qiimihii resistance waa uu celiyey dailiga hadaad aragtaan candle xaraami ah waa una tusay insha allahu tacaala sell area buu joogaa euro australian qiimihii 4 saac hadaad aragto balse waxa mushkilada ay ka taagantaa waxaa waaye interest rateka baa haddii australianka uu negative soo baxo ama intii la filanayo uu soo baxo qiimihii euro australian kor buu u jebin doonaa so markaas haddii qiimihii kor u jebiyo aan ka warsugaynaa waayo qiimihii hadduu kor sometimes u jebiyo wuxuu noqon karaa fake breakout so marka isagana waa inaan isku haynaa balse haddii qiimihii intuu ku laabto after that oo qiimihii intuu ku laabto newska ama inta uu ka dhaco up to here oo qiimihii newska uu dhaco insha allahu tacaala oo ku dhaco Europeanka la furo Europeanka markii la furo qiimihii uu caadi noqdo oo bullish aad aragto in this area bullish aad ku aragto insha allahu tacaala I think inaan wax fiican laga qaban karo insha allah laakiin waa markuu istaago qiimaha silkiisa uu dhameeyo aad sugto after that oo aad dhowr pips ilaa 100 ilaa 50 aad ka qabato tomorrowna waxaa jiro GDP oo Australian baa jiro so marka newsada aad ay u muhiim yihiin qofka akoonkiisa yar inuusan hore ka gelin oo haddii kale waa madax baa lagu dhufanayaa waa in stop losskaaga uu yaryahay wax walbo
faa'iidadeedana aad ku xisaabtanto. Marka insha allahu tacaala intaan baan kusoo gabagabeynayaa maanta reviewgeynii ilaa dhowrka signal insha allahu tacaala qofba jaaniska uu arko insha allahu tacaala iyo newsyada soo bixi doonaa lagu xisaabtamo insha allahu tacaala. aad iyo aad baa u mahadsantihiin daawashada videogan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aniga waa Zakariya ku magac dheer Xabaabi. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. subscribe, like, share and comment. Bye bye.